Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada asxaabta kanaalka Darul Khair Media iyo Naciim Studio. Halkanna maanta waxaa idinku soo gudbin doonaa barnaamijkii qisooyinka. Qisada maanta waxay ku bilaaban doontaa sida tan. Nin ayaa maalin maalmaha ka mid ah soo raacay doon. Doontaas waxaa saarnaa dad aad u fara badan. Doontii ayaa qallimatay. Dhammaan dadkii oo idil waxay noqdeen kuwo dhinta marka laga reebo hal nin. Ninkii asaga ahaa ayaa ku soo gaaray meel xeeb ah si nafla caari ah. Wax dad ah muusan arkin, wax caawiya iska daay. Rafaad iyo silac fara badan kadib ayuu wuxuu bilaabay inuu dhisto daash isagoo oo soo aruuriyay xaabo. Gaajo ayaa qabatay, wuxuu ku dhaqaaqay bal inuu raadsado geed miro la cuno leh. Hase ahaatee wuxuu dib ugu soo laabtay daashkii oo gubanaya. Markaas buu wuxuu yiri, Allow, maxaa sidan igu gashay? Habeenkii wuxuu seexday daashkii uu dhistay meel aanan ka fogeyn. Subaxii ayuu wuxuu ku soo kacay qaylada markab soo gaaray goobtii uu joogay. Raggii markabka saarnaa ayaa soo badbaadiyay. Markii ay meel dhex marayaan ayuu ku yiri, niman yahow sidee ugu ogaateen inaan joogo goobtaas? Waxay igu jawaabeen, anagoo marayna meel fog ayaa waxaan xalay aragnay qiiq iyo holac hawada isku shareeray. Kabacdi waxaan nidhi, meeshaas qof baa ku dhibaataysan oo u baahan caawinaad ee ina keena. Sida ayaan kugu imaanay ugu soo badbaadinay. Fiiro gaar ah. Haddaba Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu wanaag ku soo mariyay meel aadan filaynin ee weligaa ha ku degdegin inaad ka xumaato go'aankiisa. Ninkan wuxuu ka xanaaqay daashkii laga gubay, balse Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dabkaas ugu bedelay badbaado iyo isagoo dhulkiisa iyo dadkiisa ku laabtay. Meeqa dhib naga soo gaara anagoo ku degdegna inaan sabir la'aan isdhibno. Lagana yaabo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag nagu soo wado. Sidoo kale waxaa ku darsataa Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaatu wassalaam dhibka iyo rafaadka ay walaalihiis mariyeen. Ilaahay wuxuu ugu bedelay inuu noqdo boqorka ama casiiska magaalada tan Masar. Waa ku mahadsantahay daawashada qisadan. Fadlan haddii nagu cusub tahay nala saaxiib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.